munaasabad lagu Daah Furayay isku xidhka wadada laamiga ah ee magaalada madaxda Ceerigaabo iyo degmada Ceelafweyn oo la Dhamays Tiray isku xidhkooda munaasabadaas oo kulmisay dadweyne aad u tiro badan isla markaana qayb laxaad la ka qaadatay isdhexgalka bulshada kala baadiyowday iyo arrimaha nabadeynta laga wado gudaha magaalada Ceelafweyn ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa ka qabsoontay khayriyada ku taala bartamaha magaaladaasi munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha ciyaaraha shaqagelinta iyo arrimaha bulshada diinta iyo awqaafta xanaanada xoolaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta wadooyinka Somaliland maareeyaha ku-xigeenka culimada ugu waaweyn geeyiga Somaliland iyo Cabdiraxmaan oo Cali Faarax oo hore madaxweyne uga soo noqday Somaliland maamulka gobolka Sanaag iyo maamulka degmada Ceelafweyn iyo waliba dadweyne aad u tiro badan oo ku sugnaa goobtaasi ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay maareeyaha guud ee hay'adda horumarinta wadooyinka Somaliland maareeyaha ku-xigeenka iyo injineerada ku hawlan dhismaha wadadaasi oo ka warbixiyay qaabka ay u socoto haatan dhismaha wadadu Hargeysa Boorama burco inaana si fiican u dhisnayn qaabkii iyo sharaa'igii nagala shaqeynayna way soo dhow yihiin wadanka saani sheegay sahan baa lagu sameeyaa dhamaantiiba meel walba ilaa bari min galbeed waxa qabadkaygu wuxuu ka socdaa gobolka awda waxaanu ka qayb galay hadda aafooyinkii ka dhacay agfaa ku jira oo wadooyinkii baa la isku furaa hadda waxa kale oo shaqo ka wadnaa tukarad wanaga halkan joogna waxaanu jecelahay kulli waxa qabadkaygu inuu noqdo war mid maradala hal shay oo qura oo lagu kaliya ma jiro hadaan ka tagi waayo hal cagaf oo silay bisha soo socotay bilaa soo socotay meesha ka saarteen ayaa nagu karaa waxa kale oo dhari waa wax qaran leeyahay waa wax dawladda leedahay waxaan soo kordhinay inaan muddo yar oo 20 kiiloomitir daamura iyo 10 kiiloomitir oo u diyaarsan isagana in wiiga soo socdo daamur la saaro waxaan jecelahay dadka waxay naga timaadayado iyaga oo noo mahadnaqayo xaflad noo qabanaya 20 saacadood oo shaqeynayna ciidamada amniga oo la shaqeynaa waxaanu siinaa waxay nooga baahdaan xaaladaha arrimaha amniga ku yimaadaan waxaanu siinaa shidaalka waxaanu siinaa qaranka kale كل waxay ahayd hadafkeegu 40 kiiloomitir iyo 4 bilood runtii 3 bilood ayaa waxa lagu qabtay 42 kiiloomitir oo 25 ay tahay daamur 17 ay final yihiin oo ay diyaar yihiin in muxuu ahaa la dhigo sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha ciyaaraha iyo waliba Cabdiraxmaan oo Cali Faarax oo halkaas ka soo jeediyay hadallo tibaaxaya ahmiyadda ay leedahay dhismaha wadadani shaqaalahan hal ixtiraamo dadka idinka idin shaqeeyaan baalin oo dhan bacad bay joogaan aad iyo aad arrintaana nabadgelyada yaa lagu ciyaarin waxaan leenahay waa kuwa culimadii ama habaar baa laydinkaga tagaya ama duca laydinkaga tagaya insha Allah waxaanu ilaahay idinka baryaynaa kuwa ducada qaatay inaan noqotaan dadka laydin siiyay lama helayo horumarkeeda hadaan nabad dhicin waxa la waxa ka helaysaa nabadgelyo magaalada lagu leeyahay bay ahaanaysaa xeram ciidan iyadoo abaanunimi teedun bay ku noqonaysaa labadu idinkeedu ku xidhan yihiin xagga dadweynaha reer Ceelafweyn waan ku adkaynayaa inay qaataan oo eekaadaan sidii Sanaag iyo Ceelafweyn baa ugu eekaan lahayn wadanka inta kale wadooyinku waxay ka qayb galaan horumarka dalka waxay ka qayb galaan dhaqaale kobcinta waxay ka qayb galaan nabadgelyada waxay ka qayb galaan tacliinta waxaan ilaahay ka barayaa mashaariic ka waaweyn wadada ka weyn inay idin qabsoomi doonaan dadkii gobolka Sanaag waayo intii aad waxan ku jirteen ee shaqaaqadana socotay gobolada waad ka xadeen nabadgelyo lagu tartaba horumarka nabadgelyo ku yimaada ilaahay wax ka baryeena inay talmay noo soo afjaranto oo ay noqoto gobolkan Sanaag wuxuu leeyahay haati badan buu leeyahay wuxuu leeyahay dhaqaale badan buu leeyahay ay wadooyinka noo dhammaystirmaan ee ay idin noqotaan gobol isku filan oo gobolada kale bariba isagu wax dheer gabagabadiina waxa munaasabada soo afmeeray gudoomiyaha shirgudoonka arrimaha nabadeynta Ceelafweyn Sheekh Maxamed Cali Jawhar iyo gudoomiye ku-xigeenka shirgudoonkaasi oo ka warbixiyay halka ay marayaan hawlaha nabadeynta ee laga wado gudaha magaalada Ceelafweyn horta waxaan idinku bishaaraynaynaa alxamdulillah rabbil caalamiin dadka shacbiga oo nabadii way xidhmaysaa Ceelafweyn shaqaaqadii ka dhacday way soo afjarmaysaa taa waxa idin tusaaya hadda waxaanu ka soo baxnay shirkii baanu ka soo baxnay oo arrimaha iyaga iyo gudiyada aanu ku falanqeynay arrimaha iyaga haddana waxaanu u soo baydhnay ka qaybgal aanu ka qaybgalno furitaanka wadada aanu ka qaybgalno taasi waxay ku tusaysaa haddii arrintu ay culus tahay
oy masiiba taagan tahay oy colaadi taagan tahay oy shida joogto maba annaan soo haleelneen waxaan oran lahayn taayadu baan ku mashquulsan lahayn waxaan taa idinku bishaaraynaa ku bishaaraysta sidaa sheekhu uu sheegay nabadii marxalad fiican bay maraysaa dadkii walaalaha ahaa ee qardoofadan ay dhex martay dhimashiya dhaawacba acyaantoodii ama shakhsiyaadkii qiimaha badnaa iyo mas-uuliintii intuba haddaanu soo kala dareernay iyagoo gacmaha ishaysta oo nala shaqaynaya waxaanu hadda isu dhaafinaynay dhimasho iyo dhaawac wixii jira in qolo waliba ay ka soo jawaabaan iyagoo raalliya oo qolo waliba wixii ay qabaan iska hubinaya daraasad wada jira ku samaynaya ayaa hadda naga tegeen.